awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada kusoo dhawow muuqaalkeena maanta waxaan u hadli doonaa sida loo buuxiyo foomka DV lottery-ga. ugu horeyn marka hore haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like garee asxaabadaada aad jeceshahay in la wadaag. marka hore waxaa soo galaysaa Chrome-ka, halkaa waxaa ku qoraysaa dvprogram.state.government ayaa ku qoraysaa. kadibna waxaa kusoo bixi doona linkii ugu horeeya. waxaa noo soo baxda hadda aniga electronic diversity visa program, kaas ayaa marka waxaan ku dhufan doonaa click ayaan ku dhihi doonaa electronic diversity visa program ayaan ku dhufan doonaa. kadibna wuxuu na geey doonaa qayb kale ayuu noo gudbin doonaa. aan aragno marka qaybta oo inoo gudbiyo ee xigta. qof walbo jecel in uu aado Mareykanka foomkan waa uu ka faa'iideysan karaa. waxay furmatay 5 bishan waxaana ku eg tahay November 8 ayay ku eg tahay. waa ujeedaan waxaa jiro website kale oo fake ah, laakiin waa mid ka saxda ah, waa kan electronic diversity visa program. marka qaybta waxaan tagi doonaa hoose waxaan tagi doonaa begin enter ayaan taaban doonaa. kadibna wuxuu noo gudbin doonaa qayb kale. waa kana qaybtan aad ujeedaan, halkan waxaa ku xusan ama ku qoran xuruuf iyo nambaro. halkan ayaa buuxin doonaa. marka halkan xuruufta kaaga muuqata ayaa marka hore ku buuxinaynaa. waxaan ku buuxinaynaa nambarka u horeeya oo A ah, waxaa ku xiga M, waxaa ku xiga M kale, waxaa ku xiga B, waxaa ku xiga 8, waxaa ku xiga 6, waxaa ku xiga W, waxaa ku xiga E. haddaadan fahmin halkaan aad taaban kartaa si mid kale lagu siiyo. kadibna waxaan dhihi doonaa submit ayaan dhihi doonaa si marka qeybaha kale xiga lagu gudbiyo. waa kana qaybtan ayaa soo baxday. qaybtan part 1 ka ah waxaa ku qoran halkan last name, magaca ugu dambeeya halkan ku buuxinaysaa. tusaale magaca ugu dambeeya Axmed ayaan dhahay, halkaan imaana magacaaga koowaad ayaa ku buuxinaysaa. waa kaya halkaa waxaa ku buuxiyey Cabdinaasir ayaan dhahay. haddii rabo double A ayaan ka dhiganayaa. halkan waxaa middle name-ka waa magacaaga dhexe. halkan waxaan ku buuxiyey Cali. waa ujeedaa last name magacii ugu dambeeyo Axmed ah, iyaga last name-ka ayay soo hormariyaan. fastigana waa dhexduu ku jiraa, middle-ka ayaa u dambeeya. marka waxaan dooranaynaa marka qaybtan ku qoran tahay qodobka number koowaad ayaa u gudubnay. numberka ku xiga gender waa male and female, midkaa tahay ka dooro. marka waxaa u gudbaynaa numberka saddexaad. waxaa ku xusan waxaa lagaa rabaa bisha markaa dhalinaysa meeqay maraysay. tusaale 8 ayaan dhahay, day marka bisha 8 aan dhahay, maalmaha 20 aan dhahay, yeerka waxaan dhahay 1995 baan dhahay. marka sidaas u buuxiyey. xogtaana waa muhiim inaad mar walba xasuusnaato, waa muhiim. sidoo kale su-aasha afraad city lagu weydiiyey ama where were you born, halkaa ku dhalatay oo kale. ani waxaan dhahay Muqdisho, halkaa Muqdisho aan ku qortay. adiga marka halkaa ku dhalatay adaa taqaano ku qor. waxaan imaanaynaa nambarka 5aad. waxaa lagu weydiiyey country-ga, wadankee waa. marka wadanka aad ka soo jeedo ayaa ku qoraysaa halkaa. aniga marka halkaan waxaan ka raadinayaa wadankeyga Soomaaliya ayaan ka raadinaynaa. liiska waa kana Soomaaliya waa ka doortay. waxaa u gudbaa marka nambarka ku xiga. su-aasha ku xigta ee 6aad ayaan fiirinaynaa. su-aasha 6aad waxaa lagu weydiiyey country-ga ama wadankaa joogtid ma loo ogol yahay DV program-kan ma la ogol yahay. yes waay, tigta way saaran tahay. waa ka soconaynaa, waa taas waa yes waay. nambarka 7aad halkan mar walba waa halka badanaa cilada ka imaado. waa sawirka, waa inaad iska saxdaa. sawirka waxaa lagaa rabaa 600 lagu dhuftay 600 lagaa rabaa sawirka DV lottery-ga. markaa footada tagtid waxaa dhehaysaa waxaa u baahanahay sawir DV lottery ayaa u baahanahay dhehaysaa. marka aniga halkaan imaanaa, sawirka halka igu jiro ayaa imaanaa. marka sawirka waa inuu ahaadaa sawir DV lottery ah inuu ku ahaado waay. marka
DV lottery waa inuu ku ahaadaa sawirka, haddii kale ma aqbalayo, calaamad guduud ayaa ku dhici doonto. Marka hadda waxaan dhihi doonaa sawirkii halkan aan kusoo diyaarsaday DV 2024 open ayaa leeyahay. Marka open waa ujeedaa sawirka wuu aqbalay oo halkaa uu qaatay sawirka. Kadib waxaa ku xiga marka qaybtan waa optional waayo, waa ka tagi kartaa. Address-kan aniga waxaan ku qortay Xalana Road ayaan ku qortay. Address kale oo ku siinaya asagana waxaa dhehaysaa Wadajir Road ayaan raacsiinayna asagana Wadajir Road. Numberka ku xiga ama xarafka D city ama townka magaalada ayuu ku weydiiyey Muqdisho. District ama wuxuu ku weydiiyey numberkaane countryga ama state-ka. Markaas state-ka marka wuxuu noqonayaa Wadajir aan dhahay, district Wadajir aan iska dhahay. Postal code-ka marka wadamada qaar way leeyihiin laakiin Soomaaliya ma laha, laakiin halkan waxaa isaga buuxinayaa ama no postal code ayaan dhihi karaa. Postal code ma lihi, ama numberka Soomaaliya ku buuxi furaheeda 256. Numberka ku xiga countryga marka wadankee waaye, wadankaan kasoo xareynayna hadda wadankeena waa Soomaaliya. Halkan marka waxaa kusoo buuxinayaa numberkan Soomaaliya kusoo qoranaya. Hadda letterka S ayaan joognaa, Soomaaliya halkan ka raadinaya Soomaaliya. Kadib waxaa noogu xiga countryga oo Soomaaliya, numberka ku xiga 9aad country where you live today, wadanka maanta ku nooshahay. Wadanka maanta ku nooshahay ayaa haddana soo dooranaysaa. Wadanka aan ku noolahay waa Soomaaliya. Haddana halkaa wadanka ku nooshahay soo qoraysaa. Aniga hadda marka haddana waxaan dooranaynaa letterka S ayaan raadinaynaa Soomaaliya. Halkan wuxuu ku weydiiyey phone number ayuu ku weydiiyey. Phone numberkaagana furaha ka bilaab 2526 numberkaasaa u qor. Sidoo kale waxaa laga rabaa number 11aad. Number 11 email laga rabaa, gmailkaaga halkaa ku qor. Sidoo kale mar kale confirm ku samee, xaqiiji gmailkaaga mar labaad qor. waa sidaa. Marka gmailkaaga marka ku xiga 12aad ayaan fiirinaynaa. Highest education levelkaaga maxaa waa marka primary miya, high school miya, high school degree miya. halkaa marka educationkaaga ama aqoontaada ayaa ka dooranaysaa. halkaan waxaan ka dooranayaa university degree waa marka heer jaamacad waaye. marka kadibna waxaan dhihi doonaa marka waxaa lagu weydiiyey current year, hadda aad ku sugan tahay inaad married tahay ama aad soo guursatay ama inaad guursanin ama aad divorce tahay. marka ani waxaan dhahaa unmarried ayaan dhahaa, unmarried ayaan dhahaa. haddaa married tahay waa kaya. number of children, maadaama aan dhahay unmarried waaye aan weli guursanin, number of children ma jiro markaas ewer waa halkaa ewer ku buuxinaysaa. kadib waa soo dhameeyey intaa oo dhan. maxaa ii dhiman marka step u dambeeya waxaa waaye continue inaan dhaho oo hooshii aan sii wada. marka continue aan leeyahay, continue ayaan leeyahay, continue ayaan taabtay. marka kadib maxaa ii soo baxay warbixintan ayaa ii soo baxday, warbixintan ayaa ii soo baxday. marka warbixintan ayaa ii soo baxday. marka hore warbixintan waa inaad screenshot ka qaadataa, screenshot waa inaad ka qaadataa. sidaa waxaa doortay waa dulmar waa marka inaad dulmartid waaye waxyaabaha aad hadda inaad dulmartaa. marka intaanaan dulmar ku sameynaynaa. waa kaya photoshopka oo aqbalay, sawirkii waa aqbalay dhammaan intaan doortay. postal code ma jiro, dhammaan intaa gudbinay. waa kaya submit ayaan dhehaynaa. waa kana DV-ga sidaas waxaa ku soo qoray success, waa ku guuleysatay waa. marka xogtan halkan kugu qoran
waxaa muhiim ah marka xogtan inaad ilaalsatid ayaa muhiim ah, oo hadda waa xaqiijisay hadhowtii waxyaabaha ku baaran doonta ayay ka mid tahay. Marka ama wuxuu ku leeyahay daabaco ama record ku sameeyo oo meel ku kaydso ayuu ku leeyahay. Marka intaadan ka bixin sidaas samee. aad u mahadsantihiin. haddaad channelka cusub tahay subscribe saar, muuqaalkan like garee si asxaabada ay ugu faa'iidaystaan. adiguna haddaad jeceshahay inaad ka mid noqotid dadka xareysta DP Lottery-ga, qaabkaas ayaa loo xareeyaa. mahadsanidin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. nasiib wacan.